السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال halkani waa xog media hadii ay tahay markii kugu horeysay subscribe like share isla markaasna saaxiibada la sii wadaag muuqaal walba ku soo gaara maasanid hadaba daawadayaal haduu weyn raali ka noqdo maanta waxaan ku soo qaadan doonaa taariikhda magaalada Baydhabo oo ah magaalad weyn isla markaasna xadaaradeedu sareyso Baydhabo waa magaalada madaxda Baay ee dalka Soomaaliya waxay dhanka koonfureed ka xigtaa magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho waxay u jirtaa 250 kilomitir waxayna saldhig u noqotay mar dhaweed dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya iyo baarlamaanka sidoo kale waxay xarun u ahaan jirtay qabqablayaashii dagaalka Baydhabo waxay ku taalaa meel istiraatiiji ah waana magaalada madaxda gobolka Baay magaalada waxaa ku nool dad isku dhaf ah una badan dadka magaalada taariikhda ku leh waxa ay dadka gobolkaasi ku faanaan dadka degan magaalada sida ay u jecel yihiin magaalada iyo dadka deganba reer Baydhabo kuma dhisna qabyaalad waa dad reer Baydhabo isku yiraahdo Baydhabo magaalada waxa ka soo jeeda culimo caan ku ah diinta waxayna ahayd Baydhabo meelaha ugu quraan akhriska badan waana meelaha Soomaaliya ugu qabo Baydhabo waxay leedahay ila aad u biyo badan oo aad caan ku ah kuwa ugu caansan waxa kamid ah Gabooda Bohol Galanjo Lamamukiyo waxay leedahay Baydhabo ugu yaraan 5 buundo Baydhabo waxa isku xirta magaalooyin aad u fara badan oo ay kamid tahay caasimadda dalka ee Muqdisho Baydhabo qofkii tagaa waa meel aan marnaba u ilaabi kareynin magaalada waxay caan ku tahay dad dega waa dad reer guuraa iyo beerley ah waa dad nabadda jecel oo diinta aad ugu dhaqma magaalada Baydhabo waa magaalo aad istiraatiiji ah marka loo fiiriyo gobolada dalkeena hooyo Soomaaliya waa magaalo dadka degan xoolo dhaqato iyo beerley ah waa magaalo leh tuulooyin fara badan Baydhabo waa magaalo aad ka heli kareysid raashinka freshka ama cusub sida caanaha geela looda iyo waxyaabaha la halmaala Baydhabo waxa ku tilmaami kareynaa magaalo barwaaqo sooran ah waxayna ka kooban tahay 4 xaafadood oo kala ah Isha Bardaale Horseed Holodaag Baydhabo waa magaalo isku xirta caasimadda dalka Muqdisho iyo gobolada Bakool iyo Gado iyo degmooyinka Diinsoor Baardheer iyo degmooyin fara badan magaalada Baydhabo waxay leedahay 3 jid oo waaweyn mid ka yimaada caasimadda Soomaaliya Muqdisho mid aad gobolka Bakool iyo gobolka Gado iyo mid kale oo aad Diinsoor iyo Baardheer iyo Kismaayo waa magaalo aad u weyn waa magaalo dadka degan ay ku dheertahay Soomaalinimada maasanid daawashadaada hana moogaanin inaad subscribe dhahdo bartaan maasanid